halgankii wixii ka dambeeyay waxaa ka fulay degmada Jawiil mashaariic badan boqolkiiba 80 isxilqaan ha ku dhismeen ama si walba ku dhismeen horumarkii u dambeeyay ay ahaayeen xagga caafimaadka solar systemka oo dowlad goboleedka Hirshabelle naga soo gaaray waa gudoomiyaha degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan Cabdulqaadir Cabdullaahi oo ka warbixiyay horumarada ka hirgalay degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan halgankii dib u xiraynta deegaanada gobolka Hiiraan kadib xaaladda ammaan ee degmadaasi iyo sidoo kale baahiyaha ka jira degmada Jawiil isla markaana ay bulshada degmada waxaana uu sheegay in Jawiil ay ka hirgaleen mashaariic horumarineed kuwaas oo inta badan ku dhismay iskaashi bulsho isla markaana uga mahad celiyay qurbajoogta reer Jawiil iyo qof walba ee qowl iyo ficil uga qayb qaatay dhismaha goobaha danta guud ee degmada Jawiil laga hirgaliyay sida isbitaalka guud ee degmada Jawiil xarumaha maamulka degmada iyo horumarka kale waa kan gudoomiye Cabdulqaadir Cabdullaahi oo ka warramay arrimahaas iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee bulshada reer Jawiil ay ka faa'iideen halgankii qawaariinta looga saaray inta badan deegaanada gobolka Hiiraan 2 sano ka hor iyo waliba baahiyaha ay bulshada ku nool degmada Jawiil iyo nawaaxigeeda kadib wareysi uu siiyay warbaahinta qaranka waxaana daladiisii ka mid ahaa waxaan mahad celinaynaa telefishinka qaranka iyo tiimkiisa oo maanta na soo booqday degmadeena Jawiil waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin kuna soo dhawaada degmadiinii sidaad ogtihiin degmada Jawiil waxay ka mid tahay degmooyinka cusub ee hadda ku beeray state-ka wixii ka horeeyay degmada Jawiil waxay soo martay marxalado kala duwan halgankii wixii ka dambeeyay waxaa ka fulay degmada Jawiil mashaariic badan boqolkiiba 80 isxilqaan ha ku dhismeen ama si walba ku dhismeen waxaan anoo fursadan ka faa'iideysanayaa markaas marlaad iyo saddexaad uga mahad celinayaa jaaliyadeena aad u quruxda badan iyo ama xildhibaanadeena ahaato ama bulshada Jawiil degan ayada naftirkeeda xarumihii degmada oo isxilqaan lagu dhisay saldhiggii booliska howlalkii shirarka community-ga ahaato xeelal ayagu gacmaha ku qoteen oo ay diyaarsadeen inkastoo ay caawimaad kalena ay helayaan laakiin boqolkiiba 75 waxaan uga naga garab siiyay jaaliyadaha ka soo jeeda degmada iyo shacabkeeda oo ah dad aad u qaali oo firfircoon wax qabadka marka taas waa intaas haddii aan u soo gudubno marka wax qabadkeeda kale sida hadda arkaysaan hadda waxaa horumarkii u dambeeyay ay ahaayeen xagga caafimaadka solar systemka oo dowlad goboleedka Hirshabelle naga soo gaaray on ayagana uga mahad celinayno wasaaradda caafimaadka ayada naftirkeeda hay'adda Safe Children oo gacanta ku haysa isbitaalka oo barnaamijka damal caafimaad iyo iskuulaadka naftirkiisa inkastoo macallimiintu ay nagu yireen wasaaradda caafimaadka ayada naftirkeeda ka qayb qaadatay ay jireen ayada naftirkeeda markii hore aan isxilqaan aan ku dhisnay isbitaalka iyo waxyaalo badan oo inkastoo dadka shacabka ay ku tiirsan yihiin dhinacyo badan sida beeraha iyo xoolaha kale haddana ayagu in isxilqaankooda ay ku samaystaan halgankii dib u xiraynta deegaanada gobolka Hiiraan ka hor sida ay ahayd Jawiil iyo maanta maxaa farqi u dhexeeya sida alla socoto isu socodka markii uu barto ama mar la kala xiriiraya marna waa mar isu socodka wadooyinka ay furan yihiin aad u baahan cid kasta oo hay'adaha wax qaban kartaa ma haysan wada ay ku socdaan saas darteeda waxay keentay in wax qabad ay muujiyaan haba yaraato laakiin qofku hadii uu wax yar qofkii keena wax badan uu keeni doona sababtoo horumaradan aad ku sheegay ay qayb ka mid ah wax ku yimideen nidaamka dawliga waxay ka faa'iideen isu socodkii in ay meeshii doonaan aadi karaan inay leeso socon karo taardooteedaan ama maxaas noqotay balweynaha noqotay in dadku bulshadu ay dhex socon karto hay'adii ay socon karaan toban beer gadiid ay nooc meeshii ay doonaan maanta ay ka shaqeyn karaan ama bulshadu ay socon karto taas keenaysa marka in bulshadu is dhex gashay dowlad ku diidin hay'adihii iyo dhan walbana la is dhex galay maadaama kala xirnaan ay jirtay waxyaalan ka faa'iidnay ka mid ah ugu dambeyn maxay baahiyaha ka jira degmada Jawiil ee u baahan yihiin bulshada in sida uu dhaqsiya badan soo gaaro mid iyo laba oo soo kooban baahiyaha horta baahi sideedaba markii ay ordun tahay baahiyo badan imaanaya caafimaadka naftirkiisa isku filnaansho taam awli markaan waa dareemi kartaa waxaad dareemi kartaa xaggii dowladda ku diideen inkastoo hadda aysan wax amni darro aysan jirin waa dareemi kartaa in dhanka beeraha kale oo biyo-baxooyinkii oo dareemi kartaa intii dadkii waxay ay sameeyeen in 3 bilood gudahood
saddex bilood gudahood biyo baxadii ay soo baxayso. waxaan codsanaynaa in bulshada la garab istaago, wax lala qabto, sida la caawiyo bulshada, ama ha ahaato in shaqo abuur loo sameeyo. sababtoo maalin walba qofka haddii asaga kaash la siiyo ama wax la siiyo waxba ma soo kordhiso, laakiin qofka haddii ama ganacsi loo sameeyo ama xirfado uu ku shaqaysto loo sameeyo waxay keeni kartaa qofka inuu soo kabto. saas darteed waxaan leeyahay ha loo wareego dhanka qofka in la soo kabciyo ama wax la siiyo, gacanta la siiyo, waxba kaash waxba kama soo baxayaan, in qofka la maalgeliyo si uu asagoo u shaqaysto wax u soo saarto. Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse, warbaahinta qaranka, degmada Jawiil, gobolka Hiiraan. halgankii wixii ka dambeeyay waxaa ka fulay degmada Jawiil mashaariic badan, boqolkiiba 80 isxilqaan ha ku dhismeen ama si walba ku dhismeen. horumarkii u dambeeyay ay ahaayeen xagga caafimaadka.